wareeg waryaa waa ay ka duwan tahay dheelista geemkani geemamka kale. magac ahaan waxaa loo yaqaanaa VR oo loo soo gaabiyay virtual reality. dhalinyaradu marka ay dheelayaan waxaa qaada xamaasad aad u weyn oo waxa ay dareemayaan in ay si dhab ugu jiraan gudaha ciyaarta markaas ay dheelayaan. marka loo eego waa ay ku cusub tahay magaalada Muqdisho dheelista geemkani oo si casri ah u samaysan. Cabdiraxmaan waxa uu ka mid yahay dhalinyarada keentay geemkani. waxa uu sharaxayaa isticmaalka iyo noocyada uu ka kooban yahay geemkani. ugu horreyn waa idin mahadcelinayaa Shabeelle TV. marka labaad beerta Banaadir oo bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir iyo nawaaxigeeda uga barteen adeegyo kala duwan. waxay soo kordhisay qalab cusub oo casri ah kaasoo la yiraahdo virtual reality. virtual reality haddii aan sharaxaad kooban ka dhiibo waa geemam ama geem casri ah oo laga heli karo waxyaabo kala duwan. waa geem la fuulayo oo leh maxaa la lahaa ookiyaalaha la xiranaa kadib qofka waxaa loo shidayaa ama tareen ama wiifow ama horror zumba sida loo yaqaano. waa geemamkii dadka ee mobeelada gacanta ku dheeli jireen smartphone-ka oo si reality ah qaab virtual ah loo geenayo areadii markaas uu qofka dheelayay. waxaa ka mid ah meelaha aad tegi doontid haddaa ookiyaalahaas xiratid meelo keeman ah. waxaa ka mid ah tawag, waxaa ka mid ah buuraley, waxaa ka mid ah waa tareen ayaa raacaysa. kadib meelo kala duwan uu ku marsiin doonaa meelo oo dadku qaarkood maaragtay lagu qalanayo, meelo waran la isla dhacayo, meelo cabsi leh ayaad mari doontaa. dadka qaar way cabsanayaan, dadka qaarna waa geesiyaal oo kama cabsadaan. qiimo ahaanna wallaahi waa qiimo dadka raali gelinayo aad u jaban. dhanka kale dhalinyarada ciyaaraysa geemkani marka aad dusha sare ka eegto qudhaada waxaad moodaa in uu ku jiro dagaal foolka fool ah oo waxa uu u muuqdaa mid si dhab ah u dagaalamayo in uu yahay. dadka ciyaaraya dheeshani waxa ay sheegeen in ay ku faraxsan yihiin marka ay dheelayaan ciyaartani, inkastoo uu dareemayo walwal iyo murugo gooni ah qofka dheelayo marka uu ka soo dago goobta lagu dheelo oo aad eegto wajigiisa waxa aad moodaa in uu dagaal adag ka soo baxay. maasha Allah wallahi marka baalkan indhaha gashatid oo geemkan uu bilaado dabcan waxaan moodaa in adiga meesha aad lagu gili iyo meesha aad joogto inay kala duwan yihiin moodaa. dabcan aniga geem waxaan dheelayaa qayb oo train iyo baalo ay ku jiraan. dabcan cabsi fara badan way jirtay markii ugu horeysay oo qalab noocan ah isticmaal indhaha gashto ay ahayd. dabcan waxaan moodaa wixii markaasi oo yacni dhibaato ah meesha ka dhacaysa geemka in aniga ahaan nafs ahaanteeda macnaha ay gaaraysa moodaa macnaha aad qofka waxaad dareemaysaa cabsi aad dareemaysaa inuu dhagaxyada soo dhacayeen. dabcan waxaan moodaa marka dhagaxyada soo dhacayaan in aniga u dhacayaan oo kale inaan meesha joogo kale tan gudaha marka ogaa cabsidinaysa ay tahay. dabcan waxa waaye asxaab meesha taagneed ogaa haddii ani wax soo gaari lahayn macnaha qeylada ka dareemi lahay. saas darteed marka waxaa niyadda ii gashay inay macnaha aniga wax soo gaarin. marka waa maalintii ugu horeysay aan tijaabinayo. alxamdulilah waxaa waaye waan ku guulaystay waana tijaabiyey inkastoo cabsiyaal badan iyo waxyaalo badan aan kala kulmay. ka waran dareenkaaga sidoo ah marka dheelis geemka? wallaahi walaashay run ahaantii waxaad u malaysaaba reality dhabta inaad ku dhex jirtid sababtoo ah waxyaalaha oo aad kuugu dhow iyo waaqiciga markaas aad ku sugan tahay waxaad u malaysaaba in reality dhabta aad dhex taagan tahay. taas waxaa waaye maba u malaysidba dadkan inaad la joogtid adduun kale taaba jirtaa markaas. ima muuqdo wax dad ah waxaan dareemayaa cabsi iyo walwal badan. waxaan ka baqayaa in bahalo fara badan halkan ay iga soo baxaan. Umul Khayr Awkar Cumar, Shabeelle TV, Muqdisho.